booqashadani aanu maanta ku tagnay malcamada ku taala xaafada State House ee magaalada Hargeysa dhismaheeduna uu ka dhisan yahay geedka hoostiisa iyo waliba oodaha ayna wax ku bartaan in ka badan 115 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho da'dooduna ay u dhaxayso 8 sano ilaa 1 sano isla markaasina ka soo jeeda qoysas dan yar oo ku nool xaafada State House ee magaalada Hargeysa kuwaas oo aan awoodin inay caruurtooda geeyaan malcamadaha kale ee ka jira magaalada Hargeysa ama ay ka qayb qaataan sidii dhismo malcamadeed loogu dhisi lahaa caruurtani waxayna caruurtani wax ku bartay geedka hoostiisa isla markaasina kuraasidu ay tahay dhagxaantu ay inta badan la soo kulmaan caqabado dhanka waxbarashadooda ah maadaama waqtigani lagu guda jiro waqti roobaadkii guga taasi oo saameyn weyn ku yeelatay waxbarashadooda waxaanu waraysi la yeelanay macallin Cabdilaahi Yuusuf Xuseen oo ah macallin muddo 18 sano ka soo dhigay malcamadani 18 sano iyo bar baanu hadda dhigaynay malcamada waxa malcamada hadda imka maanta dhiganaya kuwii maalintii ugu horeysay la bilaabay hablihii ugu horeysay kuway dhaleen baa maanta yaa casharka dhiganaya inta waanu soo dhigaynay geedka hoostiisa aanu soo dhigaynay waqtiga roobaadka loo xigu maydhma ardada way kala yaacdaa waqtiga dabaylaha iyaduna ay tahay waqtiga jilaalka oo kale tahay dhas iyo fidha iyo iyadana taasna dib weyn baa naga haysta marka waxaanu codsan lahayn cidii sadaqad aakhiraad ee geysanaysa inay ciyaalka haday roobaad ka tahay casharkii uu maydhmaya way kala yaacayaan hadii ay waqti jilaal tahay dhaska iyo fidhadaas iyo cadceedaas haysta cidii sadaqad bixinaysa inay wax u qabato oo ay u dhisto oo Ilaahay dartiisa bar badan oo quraan baa jira bar badan oo iska rafaatan baa jira waa dadka dan yarta sadaqad Ilaahay baa loogu dhigaya mooyaane dad adduun iyo xoolo iyo farsamo laga doonayaa ma jira qof isagiiba kula deesaaga hawladeedii xaaladdeedii way waxaysantaa waxaad ku adkaysid ma laho waxaad ku dhibtaa ma jirto waxa iyagu doonaan bay bixiyaan qaar kamida ardayda wax ka barata malcamadani oo aan waraysi la yeelanay ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka codsadeen inay ka soo caawiyaan sidii loogu dhisi lahaa malcamad habar magacaaga Cabdifataax imsa sanad dhiganaysa malcamada 4 sano dhiganay 4 sano halkee baad maraysaa quraanka qaaf suurad ma inoo akhri kartaa ha بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وذور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وأسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مامون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين maxaad jeclaan lahayd in aad bulshada Soomaaliyeed ayna daawanaysaa aad tiraahdid waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego malcamadan meel aan ka galo roobku markuu doo ardayday kala yaacasa oo ardaydu qeyl looxaantii waa maydhmayaan casharadii ardaydu ka baabaya waxaan doonayaa markaa in loo dhiso meel aan roob ka jirsan markuu roobku soo doo habar yar magaca muraad maxaad qabanaysaa muraado maxaad qabanaysaa looxaan dhiganay maxaad ka maydhaysaa looxa maxaad ka maydhaysaa qadbal lagu dhigi quraanka ku dhigataa xagee wad maraysaa quraanka xagee wad maraysaa alam tara gudaha malcamada waxaanu kula kulannay mid kamida waalidiinta ay caruurtoodu wax ka bartaan malcamadani taasi oo bulshada Soomaaliyeed ka codsatay sidii looga caawin lahaa dhismo malcamadeed oo caruurtani loo dhiso marka waxaan doonaynaa meela uma dhis karno qof oo faloor soo iibsan kara ma jiro waxay haystaan ma jirto marka waxaan doonaynaa in loo taakuleeyo oo loogu dhiso wixii aan qabtaan loo qabto dhibaatada haysata caruurta wax ku barta malcamadani uu dhismaheedu yahay geedka hoosteeda isla markaasina ay kuraasidu u tahay dhagxaanta kaliya kuma koobna inta aanu ka soo sheekaynay ee waxa jirta goob qashin qub ah oo aad ugu dhow malcamada walaalkaas dib weyn bay nagu haysaa aad iyo aad masaajidka malcamada intaba dhibaato aad weyn bay u haysaa waxaan oran lahayn dawladana aan u sheegi lahayn meesha inay wax laga qabto oo masaajidka iyo ubadka meesha waxa lagu barayaba dib weyn bay ku tahay in lambar 1 maalinta maanta aan noqotay in wixii wax laga qaban karo hawsha wax laga qabto wali waxaanu ku sugannahay dugsigani ama malcamad quraankani ay caruurta kala gadisanay isugu jira wiilalka iyo gabdhaha isla markaasina isugu jira da'weyn iyo waliba da'yar oo aad u jeedaan inuu ugu yar yahay wiilkaasi jira halka sano Xamdi Xaaji Oktoobar telefishinka caalamiga ah ee Universal magaalada Hargeysa.